wafdi ballaaran oo hogaaminaya gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Sharmaake Maxamed Geele ayaa si mugya miisaan loogu soo dhaweeyay xarunta gobolka Sool ee Laascaanood maamulka heer gobol ee degmada Laascaanood Cuqaash iyo waxgaradka iyo waliba aqoonyahanka ku sugan magaalada Laascaanood ayaa soo dhaweeyay warayna maayirka degmada Laascaanood Mudane Cabdicasiis Xuseen Tarwale ayaa ka hadlay Cuqaash iyo waxgaradka ayaa u mahad celiyay madaxda iyo mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagu suura galiyay in taxanka lagu qabto magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maanta farxadu waxaan noo ah inaan halkan ku soo dhaweyno gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaake Maxamed Axmed Geele iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayay uu kamid yahay agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha deeq iyo xubno badan oo la socda oo komishanka ka tirsan hay'adda shaqaalaha ujeedada socdaalkooduna waxa weeye in halkan lagu qaado imtixaan 30 qof oo ka banaanaaday 7 hay'adood oo dawladda ka tirsan mar labaadna waxay leedahay taariikh lama ilaawana saad la socotaan waa markii koowaad ee gobolka Sool ama magaalada Laascaanood imtixaanka lagu qabtay in badan baynu ka caban jiro laama Hargeysa hoosta meel lagu xidhay ama meel kale lagu qaaday waa guul noo soo hoyatay marka ugu horeysa halka waxaanu maanta isugu nimi inaanu ku soo dhaweyno oo aanu xog wareysano gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland iyo komishanka uu hogaaminayo oo u yimi halkan inay ku qaadaan imtixaan shaqaale dhan 30 xubnood taasoo ah sidii uu maayirku sheegay markii ugu horeysay gobolkan lagu qaado imtixaan shaqaale waanu soo dhaweynaynaa ilaahay baa mahad leh waxaanu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha iyo wafdidiisa waanu ka wada hadalnay iyo hay'adda shaqaalaha waxaanu ka wada hadalnay imtixaanka wuxuu noo cadeeyay gudoomiyuhu si cadaalad ah annaga oo kitaabka Ilaahay sidana si cadaalad ah in loo qaado waxa meesha ka baxay barabugaandhihii gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdi Khayre Dirir ayaa aad ugu mahad celiyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo waliba tiimkiisa oo uu sheegay in gudoomiyuhu ugu horeeyay ay suura galiyay in imtixaanka lagu xulanayo 30 xubnood ee ka banaan hay'adaha dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu qabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaan ku sugnahay xarunta gobolka Sool Laascaanood sida ay sheegeen odayaasha iyo mas'uuliyiinta ugu horeysay horta mahad Ilaahay baa iska leh mahad labaadna waxa iska leh xukuumadda talada haysa iyo xisbi xaakimka saddexaadna waxaanu siinaynaa gudoomiyaha dhalinyarada Sharmaake oo markuu halka yimi socdaalkiisa ugu dambeeyay oo bishii hore ay 17keedii aanu ka wada hadalnay in la soo gaarsiiyo in imtixaanaadka hay'addu qaas lagu qaado gobolka taasoo aanu arno ka xukuumad ahaan iyo ka gobol ahaanba inay wax weyn ka taraso baahida ka jirta gobolka inay wax weyn ka taraso xiriirka u dhaxayn kara bulshada iyo dawladda oo naga aqbalay alxamdulillaah rabbil caalamiin 14 bisha ayuu ku dhawaaqay isagoo ah gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha ee qaranka agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Mudane Maxamuud Ismaaciil Deeq ayaa isna halkaasi ka hadlay farxad bay noo tahay inaanu maanta imtixaan Laascaanood maanta ugu horeysay aanu keeno annagu hay'adda shaqaalaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka socona aad baan ugu faraxsanahay reer Sool waxaan rajeynayaa iyaguna in aad ugu farxeen ma ay dhicin wali gobolada imtixaan lagu qaado sida laga warramay dalka wali shaqaalihii lama furin waxa weeye 30 qof oo hay'adda shaqaaluhu ay ka heshay wasaaradaha dhexdooda ka bacdina aanu garanay anagoo siyaasadda dawladda ku shaqeynana inaanu gobolada cabashooyinka jirana Sool ka mid tahay aanu ka bilowno gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Sharmaake Maxamed Geele ayaa u mahad celiyay madaxda iyo mas'uuliyiinta heer gobol heer degmo garaadada Cuqaasha iyo waxgaradka dhalinyarta aqoonyahanka ah sida mugtay miisaanka loo soo dhaweeyay waftigan ballaaran oo hogaaminaya gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland alxamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam ugu horeyn gudoomiyaha gobolka Sool gudoomiyaha degmada Laascaanood mas'uuliyiinta komishanka hay'adda shaqaalaha agaasimaha guud ee macadka shaqaalaha dawladda agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha bahda saxaafadda odayaasha iyo Cuqaasha iyo garaadada iyo madax dhaqameedka goobta lagu soo dhaweeyay dhamaantiin marka hore salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaka aad baan ugu faraxsanahay inaanu joogno gobolkii garaadada
gobolkii gunta weynaa iyo taariikhda lahaa Somaliland inaanu saaka imka soo gaadhno annagoo muhiimadda aan u soconay tahay qaadida 30 kaalimood oo imtixaan oo sideen hore u xusnay wasaaradaha waaweyn dalka loo tartamayo haday noqoto wasaaradda madaxtooyada maaliyadda qorsheynta cadaaladda duulista baarlamaanka iyo maxkamadaha hoose iyo maxkamadaha sare in loo tartamayo maanta imtixaamo 30 qof ee ugu sareeya aynu geyn doono waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa madax dhaqameedka iyo salaadiinta iyo garaadada goobta nagu soo dhaweeyay na dareensiiyay yuhuun iyo qalbi wanaag aanu gobolkan ku nimid insha Allah taala maalinta sabtida 8 subaxnimo ayuu jaamacadda Nugaal imtixaankaas ka furmi doona hadii Allah yiraahdo odayaasha dhameeyay nidaamka iyo hanaanka iyo hufnaanta loo marayo ballanta iyo ballanqaadka iyo sida imtixaankeenu u dhici doono sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala nin walba qalinkiisa oo ugu guuleysan doono imtixaankaasi noo noqon doono insha Allah odayaasha dhameeyay qaabka iyo nidaamka imtixaamadu u dhacayaan arwaan soo dhaweynaya waan ku faraxsanahay runtii inaan goobta nimid waxaan sidoo kale u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Sool oo runtii muujiyay gobol amniya oo nabadgelyo oo la iman karo inuu yahay dadka u soo xudxuda xogtooda gaarsiiya runtii isagana waan uga mahad celinayaa isaga bahda guud ahaanba gobolka madaxweynaha nagula shaqeynaya gol in nidaamka cadaaladdeenu dalka ku hagayno wasaaradaha nagula amro nagula shaqeeyaan waan uga mahad celinaynaa maayirka wanaaggan iyo soo dhaweynta nagala horimid waan uga mahad celinaa dhamaanba waa inoo imtixaankaas waa maalinaynu faraxsanahay waa maalinaynu ku faraxsanahay in qalinku helay inuu qalinku helay cilmiga iyo cadaaladdu inay heshay in la sacaanood heshay in gobolka soo guud ahaan helay inaynu maanta dhamaanteen halkan aynu ku dhannahay oo inuu ugu dhannahay inagoo qalinka iyo cilmiga iyo cadaaladda iyo gobolkaba ugu heelanayna qalinkooga gacantooda waan ugu hambalyeynaya waxaan u sii hambalyeynaya insha Allah taala inamada iyo hablaha miigan in maalinta sabtida sarki doono waxaan dhamaantiin idin rajeynayaa nasiib iyo calaf wanaagsan waxaan ku xidhayaa calafkaaga iyo qadarkaaga uurka hooyada adigoo ku jira la qoray dadaal iyo tacabninba intuu doonaha duu geliyo in quudkaaga cuni kara adduunyadanba Ilaahay kuma uumin وبرخد عمر أحمد وربانتا قرن كجمهورية الصوماليلاند لا سعانات